sida dad badan ay imika aaminsan yihiin Soomaaliya geeska gees waxa haatan xilalka haya dadkii ugu leetay abid ee dalka Soomaaliya haddii aan sida iraahdana ka badbadis iyo been ma ahane waa run birtaqacad waliba labadan sababood dartood xaaladdu way ka sii dari doontaa waayo kow ma jiro xisaabtan wax lagu saxayo iyo saxwo bulsho oo ku baraarugsan dhibka ay arrintan ku hayso laba waxa Soomaaliya ka hirgashay sunno siyaasadeed oo ah in ninkii meel qabsadaaba uu raadiyo dhowr dowdar oo daman oo aan isaga diidnay dhihi karin bulshadan uu marna u diro marna ku diro waxaan imika dul istaagaynaa arrin bulshadu ay aad uga gilgilanayso oo ay tahay in wax laga yiraahdo si degdeg ahna loo saxo waayo waxa iska daba hadlay laba wasiir oo kamid ah ragga ugu muhiimsan xukuumadda Xasan Sheekh kuwaasoo muujiyay heerka hooseeya ay wacyi ahaan ka joogaan fahamka haykalka dawladnimo habka uu nidaam ummadeed u howlgalo iyo hanaanka ay tahay in wax loo hawhabiyo marka hore waxaanu ku hormaraynaa khudbo uu hotel Jasiira ka jeediyay Axmed Macalin Fiqi oo ku magacaaban wasiirka gaashaandhigga balse alaaba iska dhaxbooda arrimo aanu shaqo ku lahayn iyo dhagax tuur siyaasi ah oo ciyaal warfayn ah tiyo waxa la dhahayo aan dhab ahaantii loo dhuganaynin waxaana khudbadiisa u badnayd weeraro shakhsi ah oo qadaf ka buuxo kuwaas uu ku qaaday rag badan oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo qaar xilal sare ka soo qabtay xukuumadihii federaalka ee dalka soo maray taasoo ka baxsan curfiga iyo caraftii laga doonayay hadalka qof ku magacaaban wasiir heer qaran ah waxaanu muujiyay inuu siyaasadda u fahamsan yahay inuu dalka iyo xilkaba iska leeyahay qofkii markaas jago ku magacaaban inta kalena ay tahay in ay u habradaan waxaa doodiisa ka mid ahayd inay khalad tahay inuu madaxweynuhu la fadhiisto mucaaradka sidii taayo ay taasi tahay mid ixsaan loogu samaynayo mucaaradka waa haddii uu fiqo og yahay in dalku uu ku socdo nidaam dimuqraadi ah oo xisbiyo badan waxa kale oo isagoo xil qaran haya hadalkiisa aanu ka fiirsan xitaa ku jira reero la kicinayo taasoo ah wax laga yaqyaqsoodo oo aan ku habboonayn qof mansabkaa jooga oo ay tahay inuu ka fogaado wax kasta oo carin iyo caraadin taban oo ummadeed keeni kara ugu dambeynna wuxuu iska soo saaray amar ku saabsan ammaanka Muqdisho tiyo ay jirto wasaaradda gaashaandhiggu aanay hawsha iyadu lahayn marka laga reebo marar dhif ah oo ay caawin weydiistaan hay'adka ammaanka guduhu haddii arrintu ay faraha ka baxdo ama xaalad degdeg ah la galo iyo arrin kale oo muhiim ah oo ah in dadka dalkuba ay wada hubaysan yihiin suubka looga dhigaan ay u baahan tahay hadal ka duwan midkii uu habeen dhoweyd hoteelka ka sheegayay mar ay arrin halkaa taagan tahay oo ay bulshadii dhaygagsan tahay ayaa waxaa mikrofoonka isna qabsaday si uu malaha isu muujiyo Xasan Macalin oo isna ku magacaaban wasiirka dastuurka iyo cadaaladda oo isna saaxiibka uga marakacay wacyi xumo aan ka liidanin tii aanu imika soo sheegnay iyo faham darro baahsan oo uu ka muujiyay mas'uuliyadda ummadeed iyo xaqa uu mujtamacu ka mudan yahay ama ku leeyahay wuxuuna Macalin maxfal la soo istaagay muran ku aadan in bulshadu aanay dawladdiisa ku lahayn adeegyada asaasiga ah ee dawlad badde loo dhisto marka dhanka islaamka iyo nidaamyada casriga ah ee maanta jira la eego sida caafimaadka sahayda iyo xitaa waxbarashada waxaanu ku dooday in kaliya lagu leeyahay laba walxaato oo uu ku sheegay amni iyo cadaalad wala xukuumaddiisa aan intaa uu sheegayna xitaa lagu haynin yeelkeeda tan kasii daran waxay tahay in marar badan oo hore ay khaladaad noocan oo kale ihi hore uga soo yeereen wasiiro iyo xitaa madaxweynaha dalka ee Xasan Sheekh tusaale wasiir kamid ah kuwa aan dhicin ee xukuumadda hadda jirta ayaa hadda ka hor isagoo kaamarooyinka hor taagan oo ay jamaahiirtu is eegayso ku dooday inuu wasaaraddiisa u adeegsan karo qaraabakiil oo aan cidina u diidi karin madaxweynaha laftiisa ayaa marar badan goobo badan la soo istaagay goolal iska dhali ah iyo hadalla aan cuntamaynin xilka uu hayo ee qaran sida inaanay dadweynuhu ku mashquuli karin dabaqyada uu dhisanayo oo aanay waxba ka gelin iyo inuu ilmihiisa xil uga dhiibi karo dawladda taasoo aan sharciyan khalad ahayn balse siyaasad ahaan u baahan in wax badan xeeriyo iyo arrimo kale oo dabcan badan markay haddaba halkaa joogto haddii aanu lacala dhihi lahayn madaxweynuhu wasiiradaada taraaray la tali ama la xisaabtan sow wasiirada kama gardarnin oo xaalku ma aha maxay ku nugtaa maxayse ka nugtaa tan kale Soomaaliya oo ah dal dhinac kasta sagxadda imika ka jooga marka runta la abaaro oo la iska daayo kufaanka dabaq nin gaar ah ama shirkad dhisatay oo isagana bulaacadi hoos taalo taasoo ah doorka dayacan ee lagaga fadhiyay raggan iska tanaagooday su'aal waxay ka taalaa siyaasi wacyigiisu sidan yahay dhibka yaala wax ma ka qaban ama kaba darane ma doonaya ama ma ku baraarugsan yahay in wax qabad lagaga fadhiyo oo hawl badani hortaalo ugu dambeyntiina maadaama uu og yahay in qabyaalad lagu sii taageeri doono damba ma ka leeyahay in uu wax qabto oo khaladkiisa saxo maxamed xaaji hadalsame TV